asxaabta waan idin salamay maanta waxa aan idin wada manhuwihii ku guulaystay codayntii aan idin qabtay waxa aan rajaynayaa in uu idin qancin doono hana naga ilaawina like iyo subscribe 3000 waxa inooga hadhay 100 qof oo kaliya kuna saliya nabiga allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad sheekadu waxay ka bilaabataa nin taagan sareenta buur ka samaysan meydad wuxuu weydiiyey Louis sababta waxaan loogu sameeyay isagoo xusuusinaya inay walaalo ahaayeen oo dagaal wada jir ku soo mareen nolol iyo geeri Louis wuxuu u sheegay inay bilowday masiibada waxaa ka soo baxay makhluuqaad daloolo yaab leh oo fowdo ku faafiyeen meel kasta dalooladaas waxaa loo bixiyey qalcado dadkii la kulmayna waxay heleen awoodo qarsoon oo loo yaqaan darajooyin sidaas darteed waxaa la sameeyey kooxdii xudunta darajada si ay u qabsadaan qalcadaha wayna guulaysteen Louis wuxuu si fiican u eegay ninka weyn wuxuuna sheegay intaasi ay tahay sababta uu u baahan yahay in la tirtiro ninkaasi wuxuu noqday mid aan la xakamayn karin dadka awooda weyn waxay jebin karaan nidaamka boqortooyada isagoo ka sarreeya xataa heerka 3 wuxuu ahaa cadowga ugu khatarta badan awoodda sare waa inay ku jirtaa gacanta boqorada si ay dawladdu u deganaato ninkii weynaa oo cadho ka buuxo ayaa weydiiyey inay tani uun uga dood tahay inuu xasuuqa qoyskiisa iyo asxaabtiisa Louis wuxuu ku celiyey inuu u samaynayo xasiloonida boqortooyada kadib waxaa dhacay qarax weyn Louis ayaa hore ugu been dhigay hubkiisa qaraxaasi waxa uu ku shubi lahaa sun isku dhafan nabaro Louis wuu og yahay in ninka weyn kadib dagaal heerka 3 uusan haynin xoog uu iska celiyo wuxuu diyaariyey ciidan buuxa si uu u xaqiijiyo inuu dhinto taasina waxay ahayd sharaftii ugu dambaysay ka hor intaanu dhiman ninkii weynaa wuxuu bilaabay inuu xasuusto waqtiyadii uu la soo qaatay Louis markaasaa waxaa soo kicisay xirfadiisa qarsoon adduunka muraayadaha oo heerkeedu yahay 3 taasoo ahayd awoodda ugu sarraysa oo wax kasta dib u celisa wuxuu lumiyey noloshiisii ruuxiisuna wuxuu ku degay haro sannado kadib waxaa jiray wiilal dhibaya wiil kale oo ku xidha geed biyana ku dhex duminaya mid ayaa caloosha ka dharbaaxay oo ku yidhi saaxiibkiis inuu mar kale ku dhex dumo waxay ku majaajiloodeen waxayna go'aansadeen inay sii dheereeyaan biyaha hoostooda si ay u edbiyaan hadduu iska dhigayo wiilkii oo neefsada way adkaatay mana uu ogayn sababta uu had iyo jeer dhibta ugu jiro markaasaa waxaa soo toosay ruuxii ninkii weynaa wiil muraayado xidhanaa ayaa ku yimid wiilashii dhibaayey wuxuuna ku yidhi jooya waayo wiilkii wuu dhimanayaa mid ka mid ah dulmayaasha ayaa si kibir leh ugu jawaabay hadduu dhimanayo ha isdaaweeyo waayo taasi waa shaqada ku dhawaaqaha inkastoo uu og yahay inaysan wax tarayn wuxuu sheegay in wiilkii muraayadaha lahaa uu been sheegaya waayo isagaa u horseeday meeshaas haddaba hadduu dhinto wuxuu ahaan lahaa kii dambaysa wiilkii muraayadaha lahaa wuu baqay wuxuu sharaxay inuu sameeyey sababtoo ah way ku qasbeen tanuna way ka cadhaysiisay dulmayga wuxuu diyaariyey inuu ku dhufto laakiin waxyaabo yaab leh ayaa dhacday iftiin xoog leh ayaa ka soo baxay harada dulmayaashii way carareen iyagoo qaylinaya inay tahay qalcad cusub oo aanay awoodi karin wiilkii muraayadaha lahaa wuxuu arkay wiilkii dhibaataysan oo weli biyaha ku jira wuxuu u orday xarigii si uu u samata bixiyo markaasaa harada si lama filaan ah u engegtay makhluuqaadina way soo baxeen wiilkii muraayadaha lahaa ayaa bilaabay inuu furto xariijimaha isagoo mashquul ah ayaa mid ka mid ah makhluuqaadku soo weeraray laakiin wiilkii xirnaa ayaa soo qabtay dharkiisa oo ka jiiday jidka weerarka kadib wuxuu soo taagay gacantiisa oo isticmaalay xirfad la yidhaahdo saamaynta barafka nidaamku wuxuu u sheegay inuu isku dayay inuu bogsiiyo shaydaan yar laakiin falku wuu fashilmay sababtoo ah dhiiggii shaydaanku wuu buuxa wiilkii muraayadaha lahaa wuu wareeray ma uusan fahmin sababta uu shaydaanka u bogsiiyey markii shaydaanku mar kale weeraray wuxuu soo saaray gaashaan oo weerarka ka joojiyey wakhti ku habboon markuu ninkii weynaa furay daaqadda macluumaadka wuxuu arkay in magaciisu yahay yun xirfaddiisuna tahay ku dhawaaqaha wuxuu garwaaqsaday inuu isticmaalay bogsiin tanina ayaan ahayn jidhkiisii asalka ahaa caadi ahaan qofka taabta qalcadda wuxuu ku xirmaa nidaamka wuxuuna helaa xirfad bilaash ah oo aan isbeddelin laakiin isagu wuxuu hore u ahaa dagaalyahan heer sare gaaray wuxuu xusuustay inuu isticmaalay adduunka muraayadaha kadib wuxuu ku xayirnaa dunida muraayadaha ilaa uu maqlay qaylada dhimashada wiilkaas waxa uu caddaaday in lagu soo nooleeyey jidhka wiilkaas inkastoo ayaan ahayn fikrad farxad leh wuxuu ugu mahadceliyey wiilka fursadii aargoosiga wiilkii muraayadaha lahaa wuxuu u sheegay yun in makhluuqaadku hareeraheenna wareegayaan isaguna keliya 3 ayuu xakamayn karaa ninkii weynaa wuxuu ogaa in jidhkiisu aad u daciif yahay xataa cadowyadan yaryar way ka adag yihiin xawaarahoodana ma uu daba joogi karo markuu furay daaqadda xirfadihiisa waxa uu arkay in dhammaantood aan faa'iido lahayn bogsiinta asaasiga ah waxay bogsiiyaa 1 ilaa 4 dhiig oo bartilmaameedka ah xirfadda xadhkaha waxay ku xiraa 1 cadow oo suurtogalnimo hoose ku dhawaaqaha waa taageere laakiin dhammaan doorkooda waa ka liita taasina sababta uu xirfaddan la quudsado waxa uu isku dayay inuu isticmaalo adduunka muraayadaha markii uu taabtay cadowgii wuu fashilmay sababtoo ah shuruudaha lama buuxin marna wuxuu ku fashilmay dhigiisa
wuxuu ogaaday inay u baahan tahay dusha muraayad ah si ay u shaqayso. waxa uu isku dayay inuu isticmaalo qalinka cadowga, maro dumisan, dhammaantood waa fashilmeen. wiilkii muraayadaha lahaa ayaa baqay, wuxuuna ku yidhi hawaayin wakhtiga xirfadaha aan wax tarayn. markaasaa waxaa soo deganaaday makhluuq la yidhaahdo amiirka qaab xumay oo heerkiisu yahay 10. wiilkii muraayadaha lahaa wuu ogaa inay dhinteen. makhluuqan sare uu yahay wuxuu u baahan yahay ugu yaraan heer 10 si looga adkaado. kadib waxaa soo deganaaday boqolaal makhluuq oo dabiici ah, waxayna u soo cararayaan. ninkii weynaa wuxuu isku dayay inuu adduunka muraayadaha ku isticmaalo gaashaankii ay samaysay cadowga, laakiin nidaamku wuxuu sheegay inuu fashilmay sababtoo ah xirfadaha dadka kale dib looma celin karo. markaa wuu dhoolacaday, haddii aan dadka kale dib u celin karin, waxa uu dib u celin karaa kan isaga. markii uu isku dayay xirfaddiisa, adduunka muraayadaha wuxuu si guul leh u beddelay xirfaddii xadhkaha, wuxuuna helay qodaxyada fowdada, boqolaal qodax dhulka ka soo baxa. mid ka mid ah makhluuqaadka ayaa ku soo weeraray saaxiibkiis, laakiin makhluuq kale oo casaan ku dahaadan ayaa badbaadiyey. ninkii weynaa wuxuu garwaaqsaday in saamayntu gebi ahaan rogmatay, halkii uu ku xiri lahaa hadda wuxuu ku ridayaa jahawareer. makhluuqaadkii waxay bilaabeen inay isdagaalamaan sababtoo ah saamaynta jahawareerka, taasoo keenta inay weeraraan wax kasta oo aan la yaqaan. ninkii weynaa wuu dhoola caddaystay, xirfaddiisii aan wax tarayn hadda way xoogaysatay. waxa uu fikiray inuu rogo inta kale. markii uu rogay, dhufashada xoogga waxay noqotay weerarka khiyaanada. wuxuu ku bixiyaa 40 mana, wuxuu soconayaa 60 ilbiriqsi, wuxuuna siinayaa 10% korodhka weerarka mar kasta oo mana la isticmaalo. wuxuu kiciyey weerarka khiyaanada, seeftiisuna waxay bilaabtay inay ifto. wuxuu ogaaday in isticmaalka xirfad kasta uu siiyo 10% korodhka weerarka. wuxuu gaaray heer 6. wuxuu arkay in makhluuqaad badani dhinteen dagaalkooda, waxayna siinayaan khibrad wanaagsan. mid ka mid ah makhluuqaadka ayaa isku dayay inuu si lama filaan ah u soo weeraro. wiilkayagii wuu ka falceliyey wakhtigii, wuuna ka hortagay weerarkii. yun waxaa soo jiitay xadhkaha dhiiggiisa, kaasoo lahaa 480 dhiig iyo 120 mana. wuxuu garwaaqsaday in heerarka kor u kaca ay si buuxda u soo celiyaan mana dhamiisa. intii ay makhluuqaadku jahawareersanayeen, wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo weerarka khiyaanada. yun wuxuu kiciyey qodaxyada fowdada isagoo isticmaalaya mana dhamiisa. tani waxay kicisay saamayntan weerarka khiyaanada, taasoo keentay in mana dhamiisu si dhaqso ah hoos ugu dhacdo, halka weerarkiisu uu si isdaba joog ah u korodho 10% mar kasta oo mana la isticmaalo. waxa uu hadda haystay 12 mana, laakiin weerarka khiyaanada waxay u keentay 120% korodhka weerarka, iyadoo ay harsan tahay 44 ilbiriqsi. indhihiisii way ifteen, waxa uuna dhegaystay mid ka mid ah makhluuqaadka ku soo cararaya. wuxuu garwaaqsaday in xirfaddani ay jebisay dhammaan qawaaniinta, maadaama ay u oggolaatay inuu gaaro 22 jeer xooggiisa weerarka si fudud. markii makhluuqdu weerartay, wiilkayagii wuu leexiyey dharbaaxadii, gadaal u dhaqaaqay oo dhabarka ka jaray jeex dheer, kadibna caloosha. hiyaway wuu argagaxay, ma rumaysan karin in tani ay tahay yun isagoo eegaya dhaqdhaqaaqiisa. wuxuu la yaabay sidii ku dhawaaqaha heerkiisu 5 yahay uu leeyahay awoodan, iyo goormay ku dhawaaquhu helaan xirfadahan cusub. wiilkayagii wuxuu sii waday inuu la dagaalamo makhluuqaadka, isagoo mid mid u dilaya. isagoo leh heer 620 mana iyo 1 mana daqiiqadii soo noqnoqda, wuxuu xisaabiyey inuu aragti ahaan gaari karo 2 iyo 3 jeer xooggiisa weerarka. 1 daqiiqad gudaheed wuxuu ka adkaaday makhluuq heer 11 ah, wuuna dhoola caddaystay. wuxuu garwaaqsaday in xooggiisa hadda uu si dib yar u qabsan karo kuwa heerka 11 ah ee gaarka ah. markaasaa gacan ka soo baxday dhulka. yun indhihiisii waxay ku dhammaadeen dhulka, iyadoo makhluuq heer 21 ah oo la yidhaahdo Battlegward Temerar ka soo baxay dhulka oo qaylinayay. waxay soo jeestay oo hal fal ku xasuuqday makhluuqaadkii yaraa. hiyaway indhihiisa waxaa ka buuxday cabsi. dhanka kale, wiilkayagii wuu yara yaabay markuu arkay qarsoodi heer 21 ah oo ka mid ah maamulayaasha qalcadan. maamuluhu wuxuu bilaabay inuu u soo cararo wiilkayagii, markaasuu isku dayay inuu isticmaalo qodaxyada fowdada. laakiin xirfaddii way fashilantay, maadaama makhluuqdu aanay u nuglayn jahawareerka. ka hor intaan makhluuqdu soo weerarin, hiyaway ayaa hor istaagay, wuxuuna soo saaray gaashaankiisii. yun waxaa yara yaabay oo wax yar kadib wuxuu arkay qof uu yaqaan. wiil timo dahabi ah ayaa ku yidhi doqon yahow, isagoo u sheegay inuu weydiiyey inuusan horay u soo bixin. indhihii yun way fureen. maamuluhu wuxuu ku weeraray xoog weyn oo jebiyey gaashaankii uu hiyaway soo saaray, isagoo jidhkiisa si xoog ah dhulka ugu burburiyey. yun ayaa u orday, wuxuu soo taagay gacantiisii, wuxuuna bilaabay inuu isticmaalo xirfadihiisa. wuxuu kiciyey bogsiinta asaasiga ah ee xiyo, taasoo soo celisay 1 dhiig. tani waxay isticmaashay mana dhamiisa, isagoo ka tagtay 54 mana. weerarka khiyaanada ayaa kiciyey, isagoo siiyey 10% korodhka dhaawaca. isla markiiba bogsiinta asaasiga ah waxay mar kale ku kicday hiyaway, markan oo ah dharbaaxo muhiim ah.
haddii aad jeceshahay sheekooyin xiiso leh, buuggan PDF-ga ah wuxuu ku siinayaa waayo aragnimo akhris oo madadaalo leh. Waxaad si fudud uga akhrisan kartaa taleefankaaga wakhti kasta iyo meel kasta.